Agaasimaha Waaxda Biyo ee Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyo Dowlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Liibaan Axmed Cabdullaahi iyo Howlka Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyo Dowlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Nkadaafuri tababar dareere doona muddo 2 maalmood kaasi oo ku saabsan nadiifiyowga biyo iyo ka horseedowga cudurrada ku dhalada dhamowga biyo wasakhaysan kaasi oo Baydhabo ku qabatay Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyo Dowlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed oo kaaladaasa hay-adda World Vision tababarkan u ballanqaaday shaqaale ku shil dareetay Wasaaradda Tamarta, Wasaaradda Caafimaadka, shaqaalaha degmada Baydhabo iyo bulshada ku nool magaalada Baydhabo. Ha ku qaybgalayaalka tababarkan iyo markii uu sar dhamaada tababarka muddada 7 maalmood dareere doona iyo ku shaqeeya doonana daaweynta ceelasha biyo la dhamow ee Baydhabo iyo wacyigelinta lansuubiyow bulshada sida nadiifinta biyo ka horseedowga cudurrada ku dhalada kora dhamowga biyo wasakhaysan si loo horseedo cudurrada ku dilaacow ee shuban biyoodka. Agaasimaha Waaxda Biyaha Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyo Dowlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Liibaan Axmed Cabdullaahi oo si rasmi ah u furay tababarka wuxuu tilmaamay in muhiim yahay nadiifinta biyo. tababar soconaya muddo 2 bari ah oo ay hay'adda World Vision wasaaradda ka taageerayso kaasoo muddada uu socdo lagu baranayo waxa la yiraahdo sida loo daweyn lahaa biyaha ama ceelasha loogana hortagi lahaa xanuunada faafa ee ka dhasha biyaha wasakhaysan. tababarkan waxaa ka qayb galay oo ka faa'iideysanaya shaqaalaha wasaaradda qayb ka mid ah shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ka socda maamulka degmada Baydhabo shaqaale ka socda iyo community-ga ama iraahda qaybaha kala duwan ee bulshada Baydhabo dad ka socda oo matalaya aan ugu talagalnay markay qaataan 2 bari oo tababarka refresherka inay sameeyaan shaqo socon doonta muddo 7 casho ah magaalada Baydhabo xaafadaheeda kala duwan laga sameyn doono. dadaaladan oo aad arkayseen muddadanba usbuucan hadda bilowgiisii ilaa khamiistii la soo dhaafay wasaaraddu ay ka waday magaalada Baydhabo iyo guud ahaanba deegaanada Koonfur Galbeed waxa keenay waxaan ognahay ama aad ogtiin cudurrada ka dhasha biyaha sida koleraha ama waxa loo yaqaan shuban biyoodka iyo daacuunka inay haatan meelo badan oo ka mid ah deegaanada Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo waxa noqoto meelaha ugu daran oo hotspot-ka hadda inay ka dilaaceen oo isbitaalada dad badan oo bukaan ah ay la jiifaan oo lagu dabiibayo xanuunkaas la tacaalayo marka si xanuunadaas oo deegaano kala badan oo Koonfur Galbeed ah ka jira loola tacaalo bay wasaaraddu meel walba waxay wadaa howlgallo ballaaran oo lagu yareynayo lagu hortagayo xanuunadaas iyo sidii loo xakameyn lahaa looga shaqeynayo. wasaaraddu waxay leedahay shaybaar lagu baaro biyaha marka ay jiraan yihiin ama wasakhaysan yihiin laguna ogaado xaaladda marka ay ku sugan yihiin isla marahanta kadib waxay wasaaraddu samaysaa markay ogaato waxay baaritaan dheeri ayadana u dirtaa meelihii kale markaas hotspot ah xanuunada ay laftigooda dadka markaas bukaanada la jiifaya la idara ay u badan yihiin ama ka imaanayaan rootkaas ama meelahaas xaafadahaas markii la raaco laftigooda ceelashaasna meelahooda loogu tagaa oo waa la soo baaraa ama source dadkaas biyo ka cabayaan si loo ogaado xanuunku midka uu yahay kadibna wasaaraddu waxay ku samaysaa daweyn joogto ah. runtii waxaan halkan uga mahad celinaynaa tiimka wasaaradda biyaha Koonfur Galbeed sida joogtada ah u soo aruurinaya saambalada biyaha laga soo qaadayo dhammaan ceelasha markaas lagu tumayo in xanuunkan laga qaadayo magaalada Baydhabo ku yaala iyo guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed isla markaana baaraya oo baaritaan ku sameynaya waxaan sidoo kale rajaynayaa tiimka tababarkan qaatay ka faa'iideystaan inay si wanaagsan ugu faa'iideeyaan bulshada. Maxamed Muumin Maxamed warbaahinta Dowlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo.